wafdi heer wasiir ah oo uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha Koonfur Galbeed Maxamed Carman oo ay qayb ka ahaayeen madaxda sare ee Arab Digital Company oo ah shirkad ka shaqeysa horumarinta iyo dhismaha dekedaha ayaa soo gaaray magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed waxaana garoonka diyaaradaha Baraawe ku soo dhaweeyay maamulka degmada Baraawe oo uu horkacayo gudoomiyaha degmada Cumar Cabdulle Maxamed iyo saraakiisha amniga. Ujeedka wafdiga ayaa ahaa kuurgalida dekeda magaalada Baraawe iyagoona indhindheen ku soo sameeyay dekeda magaalada Baraawe. ugu horeyn ayaa waxa wafdiga degmada ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Baraawe Cumar Cabdulle Maxamed. waxa booqasho ugu yimid maanta marti ka soo baxday magaalada Baydhabo xarunta kumeel gaarka dawladda Koonfur Galbeed ay ku shaqeyso waxayna soo gaareen magaalada madaxda dawladda Koonfur Galbeed Baraawe. martidaas safarkoodu wuxuu daarnaa kormeer iyo ama service ay ku sameynayaan xeebaha Baraawe si ay Baraawe u hesho deked iyo reer Koonfur Galbeedba si ay deked u helaan oo waxyaabaha ay xaq u leeyihiin ay ka mid tahay insha Allah. marka anaga waxaan noo furan martadan oo madaxweynuhu noo soo diray wasiirada iyo xilwaanada iyo martada miisaanka culus ee noo timid waxaan ku soo dhaweynaynaa aniga iyo maamulkaygaba anoo maamulka afkooda ku hadlayo gacmo furan ayaan ku soo dhaweynay waana la shaqeynay wixii holahay. muhiimadeena hadda waxay tahay inaan u mahad celino wafdiga ballaaran ee meesha noogu yimid wasiirada ugu horeeyaan xilwaanka ugu horeeyo inaan u mahad celino. waxaa kaloo mahad celin ballaaran mudan madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo runtii aad iyo aad ugu haweyn in wax badan ka qabsoomaan deegaanadan Koonfur Galbeed. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka badda iyo dekedaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Carman ayaa ka warbixiyay ujeedka safarkooda ee magaalada Baraawe. saaka waxaan ka soo baxnay magaalada Baydhabo wafuud yar oo marti ah oo ayaan soo gaarsiinay magaalada Baydhabo Baraawe si ay assessment ugu sameeyaan dekeda Baraawe meesha ay ku habboon tahay. alxamdulillah ilaahay mahadsan nabadgelyo ayaan ku soo gaarnay si nabadgelyo ayaan hawshan ku soo gudunay si nabadgelyo ayaan hadda halka aan ku joogno alxamdulillah. inta dhamaan ilaahay aan ka rajaynaa inuu dhameystiro. intaas kadib socodkayna wuxuu ku saabsanaa in dekedaas Baraawe mar walbana horeyna waa u imaanay aniga ganacsato madda kor waa imaanay in ay si walba meel walba geed gaba loo fuulo dekeda Baraawe inay dhisanto ayaa hadafkeenu yahay. wax dhibaato kale ma jiraan. intaas waxaa dheer Soomaali kaftan yar haddaan ku daro Soomaali waxay tiraahdaa markii ay wax kala doonayso ama gabar ay kala doonayso koow waxa shukaansiga balaawa labada nin oo la surabo ama gabar ahaat wiilka iyaga balaawa shukaansiga iyo hadalka iyaga balaawa. marka annaga hadda waa wada hadalkii umba balaawnay dhibaato kale ma wadno. waalidka loo dambeey doonana waa dawladda Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka way. annaga kulli taas insha Allah taala wax dhibaato dawladda federaalka oo ka goona anaka aan wadna ma jirto. wax walbana meesha u dhamaan lahaayeen way ku dhamaan lahaayeen insha Allah meesha inay ku si wanaagsan ku soo dhamaataan waan rajaynaynaa. marka insha Allah taala waxaan wadnayna kaliya in Koonfur Galbeed horumarka dalka ku socdo inay qayb ka noqoto ay hesho. waayo dalkan sidaan ognahay 4 dekedood leeyahay oo hadda shaqeyso Jubbaland, Muqdisho, Berbera, Boosaaso. haddana iyadoo sida tahayna haddana garcad hadda dhisantay iyadoo saas tahay haddana waa la kala yeeshay. marka Koonfur Galbeed waxaa mar walba ka go'an tahay in ay deked hesho. shacabkan bulshooyinka Koonfur Galbeed geed dheer iyo gaban u fuuleynaa cid walba oo wax nu caawin karta waa soo dhaweynaynaa waan keenaynaa waa tusaynaa laakiin ma aha wax gaar oo anaga Koonfur Galbeed kaligeed gaar u wato waa Soomaaliya oo dhan ama dawladda federaalka Soomaaliya ay ku gabagabowdi doonaan hadii Ilaahay. marka insha Allah taala si guul baan oo soo dhamaatay waxaan had ballaaran u jeedinayaa dhammaan shacabweynaha reer Baraawe iyo ciidamada amniga oo halkan si diiran uga soo dhaweeyay iyo taliska atmis oo iyagana si fiican oo la shaqeeyo soo dhaweeyeen. waxaa kale mahad ballaaran u jeedinayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen oo arrimahan maalmahan dadaal badan iyo juhdi badan si guud iyo si gaarba ugu hayo in caasimadan Baraawe ay horumarto oo wixii ay mudneed ay hesho. runtii aad baan ugu mahad celinaynaa.
waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay guul ku dhammaan doonto maartay dekedan Baraawe howlaha socdaan howlo fiican oo maartay si fiican loo agaasimay baa socdaan si nabad ah inay ku dhammaan doonto Maxamed Qadar Warsan Radio Shabeellaha Hoose.